Valentine Day maalinta jacaylka. Maxaad ka ogtahay xaqiiqada maalintan? Valentine maxaa laga wadaa? Valentine waa nin magacii wuxuu ahaa nin qays ah kaasoo noolaa qarnigii 3aad ee milaadiga, waxaana la dilay 14 bishii 2 207 markay taariikhdu ahayd. Sababta loo dilayna waxaa lagu sheegaa inay ahayd inuu faraxumeeyay ama ka zinaysay gabar uu dhalay boqorkii Roomaanka. Waqtigaasna guur looma ogolayn sababtoo ah dagaal ayay ku jireen oo waxa ay diidanayeen in ay ragga askarta ahi ku mashquulaan reerahooda. Kadib kuwii Kirishtaanka ahaa ayaa maalintii qayska laga dilay ciid ka dhigtay oo xusi jiray sanad walba. Haddana magacii ayay inoo bedeleen si ay inoo khaldaan. Maalinta jacaylka waata meesha ay asalka ku hayso. Waxaan la leeyahay maalinta jacaylka diinteena ma inoo banaysay inaan ciidaha gaalada u dabaaldegno? Jawaabta oo kooban waa maya. Maxaa u daliil ah? Quraanka Allah subhanahu wa ta'ala markuu tilmaamayo addoomihiisa wanaagsan cibaadu raxmaan wuxuu ka mid yeelay tilmaamahooda inay yihiin kuwa aan u dabaaldegin ciidaha gaalada. Wuxuu ku yiri Allah subhanahu wa ta'ala suuratul furqaan aayadda 72 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أضوما رحمانكو وكوا أن قبجو نقون زورك markay laqoy marana dhaafa iyagoo sharaf leh. Mujaahid Abu Aliya Daawus Maxamed bin Sirin Daxaak Rabi' ibn Anas iyo mufassirin kaleba waxay ku macneeyeen zuurkan inuu yahay ciidaha gaalada. Suuratul Maa'ida aayadda 47 Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Waxaan u yeelay qolo kasta oo idin kamid ah wado iyo waxay ku dhaqmaan. Xadiidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa u soo hijroodeen Madiina ayay arkeen reer Ansaareed oo dabaaldegaya. Waa la weydiiyay waxayna dhaheen waa ciid aan u dabaaldegi jirnay jaahiligii. Kadib wuu diiday Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ku yiri inna Allah qad abdalukuma khayran minha yawmul adha wa yawmul fitr. Alle ayaa idinku bedelay laba ka khayr badan ciid Carafa iyo ciida Soon. Hadduu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ansaar u diiday dabaaldeg ay ka soo gaareen awooyaashood, bal ka waran ciida gaar laga soo gaaray lagana keenay asalkeeda. Culimada Islaamka wuxuu yiri Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ciiduhu waa waxyaabaha ay sharciyada iyo diimaha ku kala duwan yihiin. Sida awgeed ayuu Nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam qolo kasta ciid ayay leedahay, anaguna waatan ciideenu waa ciida Carafo iyo tan Soon. Markii isweydii ma ciidooda ay maalinta jacaylka ula baxeen ayaan u dabaaldegnaa. Diinteenu inaan dar Ilaahay mar walba isku jeclaano ayay ina faraysaa. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaana inoo sheegay waxaan isku jeclaynayno waana faafinta salaanta. Jacaylka aan xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam jecelnahay, kan asxaabtii aan jecelnahay, kan ahlu khayrka jecelnahay miyaanu inagu filnay? Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam u fiirso dhaqankiisa markuu biyaha cabay wuxuu jeclaa inuu ku cabo weelka Aisha radiyallahu anha ku cabtay waliba dhinac ay kaga cabaysay. Allahu akbar. Jacaylka ka weyn markuu sii dhimanay xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam cadayga Aisha u rugtay una hagaajisay ayuu ku cadayday wuxuuna kuna naf baxay laabteeda. Waxaan haysanaa diin dhammaystiran ee ayaan isku ekaysiinin gaalada. Waad ku maasantahay daawashada fiidiyogan. Fadlan sii share garay oo sii gaarsii saaxiibada kale.